waan ku salaamay saaxiib. waxaad i weydiinaysaa sababtuu ilaahay kuu siin waayey wixii aad ka bariday. waxaan ku leeyahay dhakhtarku inama siiyo dawada aynu doonayno ee waxuu ina siiyaa dawada aynu u baahannahay. laga yaaba inaad ilaahay ka baryayso waxay dhibi kuugu jirto. waxaad wax ku eegaysaa aragtidaadannimo ee gaaban. ilaahayna waxa uu wax ku kala dabarayaa cilmigiisa dhammayska tiran. saaxiib, ilmaha yari haddii uu arko kiniin midabo kala duwan leh, waalidkiina uu diido, waxa uu ilmuhu u arkayaa waxa uu u baahnaa in laga hor istaagay. waalidkuna way garanayaan inay diidmadaasi tahay deeqjaad kale leh. sidaas ayuu ilaahayna wax ugu dabaraa naxariistiisa ee ka edebso. amaba laga yaabaa inuu ilaahay doonayo inuu ku siiyo waxaad ka dalbatay ee aan wakhtigiisii la gaadhin. wax weliba in xilliga ku habboon ay yimaadaanna waa qayb murtida rabbi ka mid ah oo aanad arkaynin. saaxiib, bal akhri walamaa balaqa ashuddahu wastawaa aataynaahu xukman wa cilmaa. markii uu gaadhay muuse hanaqaadnimada buuxda ee uu gaadhay markii uu caqligiisu buuxsamay ayaannu siinay faham iyo aqoon. waxaa jira waxyaabo badan oo ay tahay inaad u bislaato si aad u ilaashato marka lagu siiyo. saaxiib, haddii uu ilaahay nebi yuusuf markii koowaad ee xabsiga la dhigayba uu ka badbaadin lahaa, ma aanu gaadheen madaxtinimada uu hantay. waxa uu ku jiray yuusuf naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee xabsiga. se ilaahay ayaa waayaha u diyaarinayey oo arrimihiisa isu dabarayey, waxaana uu u diyaarinayay sababihii uu deeqdaas weyn ka heli lahaa. saaxiib, 10kii sanne ee uu muuse naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee ku qaatay midyanka ma aanay dayacmin ee si uu masar u yimaado. waxay ahayd in duruufo iskugu toosaan, isaguna uu si wanaagsan ugu soo bislaado. xilka uu qaadi doonaa aad ayuu cuslaa. dibdhigistiisaasina waxa uu ahaa bislayn iyo diyaarin. saaxiib, muslimiintu waxay damceen inay hubkooda qaataan oo ay maka iska difaacaan, dulmigana ay iska dhiciyaan. balse in dagaalka loo idmo waxaa dib loogu dhigay hijradii karaamaysnayd kadib. allihii hijrada kadib u hiiliyey horeba iyagoo maka jooga uu u hiilin karayey. ee ilaahay waxa uu doonayey in uu marka hore tarbiyadeeyo oo hubka aanay caqiidadu ka dambaynin jidka quman dhaqsa ayuu ga leexdaa. ilaahay waxa uu la doonayay in hubka loo qaato uun keliya kor u qaadista kelmaddiisa ee aan loo qaadan karo goosiga cadowga iyo in nafta si gaara loogu heliyo midna. saaxiib, qisooyinkooda cibro iyo waaya aragnimo ayaa ka buuxda ee ku wax qaado oo ku waaya arag. haddiise waxaasaa doontayba laguba wada diido waa ku naxariis. haddii lagu siiyana murti ayaa ku jirtaa. haddii ay dibacdan xilligeeda ayaan weli la gaadhin. nabaadiina saaxiib.